waxa uu ku nool yahay magaaladan deegaankeedu yahay buuraley hawda rajadiisa ugu weyni waxay ahayd inuu mar u sameeyo diyaarad duulaysa in ka badan 4 kiiloomitir ayuu u lugeeyaa si uu soo tijaabiyo in ay duulayso rajadii noloshiisa motorka way marka laga reebo diyaaradda soo gelinayna kacdo 4 motor oo kala ku xiran 5 sano oo caqabado iyo guuldarooyin ah Axmed hadda waxa uu ku duulayaa daruuraha asagoo ku raaxaysanaya diyaaraddan oo ahayd rajadii uu muddo ku taamayay inuu marun hirgeliyo qaabka rabtay u duulaysa hadda maxaa hadda ku xiga oo aad rabtay inaad samayso diyaaraddan magaceedu waxa la yiraahdaa maandeeq sheekadan waxaad ku daawan doontaa Axmed Xasan Maxamuud oo la yiraahdo Shoodhe oo ah hal abuurka diyaaraddan sameeyay qaabku u sameeyay iyo diyaaraddu nooceed tahay iyo guud ahaan hal abuurka cusub uu leeyimid halkani waa degmada Burtille waxaan hortaaganahay gurigu degan yahay Axmed Xasan Maxamuud Axmed Shoodhe gudaha ayuu ku jiraa waxa ii fududaatay inaan si dib yar ku imaado halkan maadaama aan ahay reer Burtille hore oo aan si fiican u garanayo marka gurigaanu gali doonaa ina keena tata kawar xalkaaga fiican ma sha Allah Axmed waa kana Axmed intaanu isbaran waxaan jecelnahay sheekadayada ka hor in waxa weeye diyaaradda gurigay taala in aanu qaadano oo la aadno halka uu tijaabada u tagi jiray sida aragtaanba hadda xaggan waxa saaran laba diyaaradood oo nooca uu sameeyay Shoodhe waxa iiga warbixisaa diyaaradahan iyo fikraddan cajiibka iyo qaabkaad u sameysay noo waran horta diyaaradaha waxaan soo bilaabay xilligan dhiganay iskoolka dugsiga sare markaas aqoon badan uma lahayn ilaa haddana aqoon mataqaana mid wax qabad soo saari kara meel laakiin ugu dambeyn waxaan ku guuleystay inaan soo saaro labadan diyaaradood hor yaala dhibaatooyin badan aan ka soo marway jiraan sida inaad mataqaana helin qof ka caawiya ama aqoonteeda leh marar badan inaad duulisid oo shay inta diyaariso dhulku soo dhaca marka caqabadu waa iska badnaayeen 5 sano ay ugu qaadatay inaan soo saaro laba diyaaradood 5 sano ugu qaadatay 2 sano kamid ah waxa iska research iyo aan wax practical ku jirin laakiin 3 sano dambeysay wax aan gacanta ka sameeyay inaan qabto marka diyaaradahan ma aan ku ugu horeeyo aan sameeyo waxa way diyaaradda ugu dambeeyay waan soo saaro marka boqolaal diyaaradood baa ka horeeyay oo inta sameeyay dhulku soo dhacay oo waxa weeyaan mid la yaab kale waxa way diyaarad kasto aan sameynayo waxaan rajeynayaa ama jeclahayba inay noqon doonto mid kici doonto markaas laakiin ma noqoto laakiin guuldarooyin badan kadib waxaan ku guuleystay inaan soo saaro labadan diyaaradood diyaaraddan hadda waxaa ka muuqda calankii Falastiin iyo Soomaaliya sidoo kale kana waxaa ka muuqda calanka Soomaaliya iyo kii Puntland diyaaraddan hadda ku dhawaad waa mitir iyo imisa way cabirkeeda waa 1 mitir iyo 20 sentimeter ama 1.2 mitir tanna waa 1.25 mitir marka diyaaraddan halka mitir iyo barka waxa duulinaya marwaxadan kaliya halka marwaxad may waxa ka kooban tahay sida diyaaradu shaqeeyaan haddii la fiirsho waxay noqonayaan primary bay noqonayaan diyaaradu secondary bay noqonayaan level bay noqonayaan diyaaradaha waaweyn laakiin marka la fiirsho diyaaradaha waaweyn qaabkii u duulaan iyo qaabkii hawada la falgalaan iyo waa same marka marwaxadan ay marwaxado kala jiraan ma jiraan marwaxado kale waxaana modelkeedu waxa weeye Cessna diyaarad caadi oo ay qaataan dadka ganacsiyaasha private marka waxay qaadaan ilaa 8 qof ama 7 qof ilaa meelahaas ka qaadaan waxay leedahay motorka way marka laga reebo diyaaradda soo gelinayna kacdo 4 motor oo kala ku xiran oo markii hawada gasho hagaya sida laba baalasha xabad gadaale iyo xabad hagas midaan dhammaan qalabka ka sameysay bahalladan halkan baad ka heshay mise caqabada kala kulantay inaad hesho caqabadan kala kulmay inaan helo halkan hatta Afrika laga heli maayo qalabka diyaaradaha laga sameeyo
caqabado badan baan kala kulmay marka waana expensive oo runtii qalab mataqaanaa si markii la rabo in la soo saaro hal diyaarad oo kale waxay qaadanaysaa $400 ama $500 ay qaadanaysaa sida caadiga inaad maalgelisid oo soo saarto diyaarad. marka yaa kaa taageera fankaas والله عد هدير أنا يرى بدنا يعاوز يسوي كيران حق فاميلي حق فينانشيال كوكله بس عد مركز أقامت في شو عاود درا وحوي وأقامت خبرة وحياة بس عد متقنا سؤال أورن قنيس ما شرته متقنا قف متقنا برصورة أما كعاون كرارماس ما شرو مركز وحي لما متقنا سكوسو بيشونا يعني رتيش كأيو خلادات كان سميو kadib khibradda aan ka helo ayaan ku sameeyaa diyaaradaha. Axmed sida ka muuqataba waxa tahay in dhalinyaro ay ku jira xilligiisii waxbarashada haddana isku dayay hal abuurkan maxaad barataa hadda iskoolkiisa kale waan dhameeyay laakiin waxbarasho dugsiga sare jaamacadda ma wado laakiin dugsiga sare aan dhameeyay bas markaanu telefonka ku wada hadana ii sheegtay inaa hadda kor jaamacad ka dhigan jiray Muqdisho marka maxaa baran jiray baliga jaamacaddaas waa soo xiray sanadkii koowaad markaan bilaabaan kasoo laabtay waxaana bilaabay mechanical engineering aan bilaabay waxa ugu dhow oo soo isgali kara nidaamka diyaaradahan marka diyaaradahan laguma barto Afrika ama way jiraan pilotka in South Africa kala pilotka lagu barto laakiin waa wadamada bixiya waa 6 wadan bas 6 wadan baa bixiya jaamacadahooda marka waxaan ku weydiiyay iminka ma shaqaysaa baaga muddo tahay laakiin waxa aad waqtigaaga ugu badan ku bixisaa soo saarista diyaaradahan iyo waqtiga inta badan waxaan geliyaa halkan wuxuu ahaa wixii kugu adkaa samaynta diyaarada samaynta diyaarada waxay ahayn xagga duulimaadka ma fududa in diyaarad inta la sameeyo in mataqaana la duuliyo waxay u baahan tahay aqoon dhammaystiran iyo in la saxo dilaakureys miisaankeeda iyo central gravity-geeda marka dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa in diyaaradda markii la sameynayo laga taxadiraa si diyaaradda loo helo inay si fiican ugu duusho marka waxyaabihii ugu badnaa waxaa ka mid ah xagga dee shayga markii si fiican loo sameeyo ama diyaaradda si fiican loo sameeyo si fiican u duuli kartaa weeye marka wixii ugu adkaa wuxuu xagga duulimaadka ahayd iminka kuwani waxay ka mid yihiin Soomaa kuwii tijaabooyinka badan aad ku samaysay oo si aad u samayso kuwan ilaa intee tijaabo ama isku day baad samaysay si aad u samayso labadan diyaaradood hadda kor kama xasuusta laakiin se waxay qaadanayaan boqolaal tijaabo waxaan maraa inay ka badan yihiin boqol noocaan oo kala boqolaal noocaan oo kala inay ka badan markasta oo diyaarad la sameynayana waxa isdhaasama su'aalo midda markaan sameynayo kale waxaan islahaa waa heshay dhisankii wax walba mataqaanaa waa diyaar baan islahaa laakiin markaan u fiirsaday oo aan arkay waxay noqotay mataqaanaa inaysan awood u lahayn inay duusho ama duulitaankii ku fashilmay duulimaadkii ku fashilmay markastoo diyaarad la sameynayo ama aan sameynayo waxaan isdhahayaa waa midii ugu wanaagsanayd oo aad mataqaanaa gacanta ku haysid oo ay guuleysanaysaa laakiin caqabad baa soo baxaysa iminka waxaanu ka soo baxnay xaafadii waxaanu u soconnaa barxadda Hilaac halkan ku dhawaad wuxuu u jiraa ilaa 4 kiiloomitir ilaa 5 kiiloomitir qiyaastayda Axmed waxa ka caawiya in ay tijaabooyinka soo sameeyaan oo garoonka oo la qaada in abtigi marka waan raaci doonaa garoonkaanu aadi doonaa ina keena diyaaradan hadda hortayda taala waqti intee la eg bay hawada ku jiri karaysaa wallahi waqti wax ku jiri karaysaa hadda cimiladu say tahay weeye haddii la duulinayo kale subax cimiladu degan tahay aysan dabeel badan jirin 25 daqiiqo kale hawada ku jiri kardhaa waxayna ku xiran tahay bayteriga ku xiran tahay isticmaalaysid sayskiisa ka sii weyn haddii loo isticmaalo waqti ka sii badan bayteriga iyo controllerkeeda iyo wax dhanba waa la horumarin karaa haddii la horumariyo waxay ku xiran tahay in hadba teknolojiyada la isticmaalayo ku xiran tahay in hawada ku soo jiri karto especially bayteriga oo kale hadda waxay ka samaysan tahay walax aad u fudud oo loo isticmaalo packaging-ka oo software balse waxaa jira
qalab ka casrisan iyo matooro kuwan ka casrisan oo hamiga iyo hididiiladu ku fakaraya gaarsiin karaya haddii uu helo cid ka caawisa inuu soo saaro kadibna bulshada qaabku sheegaya ay uga faa'iideystaan waana riyo aad u qurux badan oo mudan inay hirgasho waan rajaynaa waxa weeye Axmed cid ka caawisa hadday noqoto dawlad iyo dadka bulshada Soomaaliyeed inaanu aragno maalmaha kamida aniga laftarkayga Axmed waxaan uga imid masaafo jida 100 iyo xoogaa 10 kilomitir magaalada Garowe isbuuc ka hor baa aniga oo jooga Garowe baan muuqaalkiisa waxaan ku arkay baraha bulshada maan aqoon kadib Facebook-giisaan raacay mase uu soo codsado aanan aqbalin gudaha u galay waan aqbalay mase waa soo wacay message uu ii soo diray kadib waan la xiriiray kadib waa isbaranay uu soo sheegay hadda ka hor nin dhalinyaro ay ula soo xiriiray inuu yahay xarig weydiiyay la xiriira drones marka aad ay farxad gelinaysa xilliga inaan ama ka caawiyo xargaha ama ku xiray meeshu ka heli lahaa alxamdulillah kadibna waxaan ku ballanay inuu markuu dhameystiro inaan u imaado oo aan jeclaystay inaan idin la wadaago sheekadan aadka aniga laftarkayga ii soo jiidatay iyo inaan waxa weey idin soo gudbiyo dhiirigeliyo Axmed farxad gaar ah ii tahay marka inaan hadda halakan joogo degmada Burtile xalay 7 saac baan soo baxnay saaka 5 baan u nimid still maanu seexan waxaan xiiseenaynaa subaxda aroorta hore inaan muuqaalka duubno farxad gaar ah ii tahay laftarkayga halakan iyo guriga aad degan tahay way aad u kala fog yihiin muddo waxaan qiyaasayaa 5 kilomitir ilaa 4 kilomitir waa jidha ka waran maxaa dareentaa muddo badanna waxa ii sheegtay in ay kuwan ay yihiin kuwa ugu dambeeyo guuleystay diyaaradan iyo mid kale xaafada taala balse ay jiraan diyaarado badan oo ka soo burburayay 3 sano u dambeeyay maalin walba ina 5 kilomitir soo jidho oo halkan aad timaado oo ku tijaabiso daroontan iyo masaafada dheer iyo rabitaanka xoogan maxaa kugu dhalinayay والله waxay ugu dhalinayay marka wax gacanta ka sameynaysid waxa jeceshay waxaas ina ka gurgaadid ama wixii aragtay in mataqaana natiijadeeda fishid marka natiijada weyn waxay marka wax sameynaysid waxay ahayd waxa la sameeyay waa diyaarad marka waa inay duushaa markii sameynteeda aan dhameystiro waxaan ku qasbanay inaan garoonka aado saan u soo arko inay ka casayeen kale marar badan waxa jirta inaan garoonka aado soo duuliyo kadibna iyadoo wasakina ku jirin hawada ay dhulka soo dhacdo marka diyaaradda quruxda badneed oo kala soo baxay guriga in aan magaalada la saddex maro iyadoo jaban markaas aan gacanta ku qaado oo aan guriga geeyo taas baa waxay ahayd waxyaabahaas oo dhan waxba ma arki jirin kaliya focuska waxaan saari jiray waxa markaa mataqaanaa soo dhacay sababta ay soo dhacday iyo waxa iga dhiman inaan dib ugu noqdo kaliya xanuunku uma hayn muddada dheer soo safraysay iyo sidoo kale jabitaankay jabtay markii isku daygaaga kaliya waxa muhiimadda ahayd inaad guuleysan doonto mar walba ku celcelisay iminka waanu soo dhamaysanay tijaabooyinkii iyo duulimaadkii diyaaradda shoodhe waxaan rabaa inaan dhowr su'aalood weydiiyo ka waran dareenkaaga hadda iyo maadaama aad ku guuleysatay tijaabooyinkii ugu dambeeyay oo qaabka rabtay u duulaysa hadda maxaa hadda ku xiga oo aad rabtay inaad samaysid والله هذا واحد يحكي وأنا سيهر مريء إن لا أنت سيهر مرين كرو أنا سيهر مريء لكن مرة وحنا بأنا دولة إني يقدر مستقبل صوبته وحيابان وحيل حريران رماد دولة وأنا ودمض وحيابها متقن هذا عالم كمركل في الشو وحيابها كشقية حق أمنية بيرها وحيابها كشقية وحيابنا بين الوقت كذا مركا وهذه دولة عندي رجلين كهلو أما عيد كاستو أو عندي رجلين كهلو كردي عن كهلو
waxaan rabaa inaan sii horumariyo laakiin hadda yar aqoonteeda iyo qalabkaan haysto waxay saamaxayaan inaan kuwan la mid ah sameeyo maxaa isleedahay waa looga faa'iideysan karayaa ama dawladda ama dadku uga faa'iideysan karayaan diyaaradahan والله الشعب كهدي في الشو waxay uga faa'iideysan karaan xagga beeraha hadii la sameeyo diyaarado beeraha xagga beeraha ka shaqeeyo kale waxa looga faa'iideysan karaa xagga beeraha dawladana xagga security-ga bay qayb weyn ka qaadanayaan waxa soo hosgeli kartaa laanta caafimaadka oo ayaguna adeegsan kara in dawooyinka iyo dhiigga waxyaabo sida xaaladaha waxa iska imaanaya emergency sida in tuulo ka fog caasimadaha iyo magaalooyinka in looga baahdo dhiig ama wax yar oo taqaana in looga baahdo waxaas hadii qofka ama dhiiggaas la gaarsiin ama dawada la gaarsiin qofku ma taqaana u dhiman karo marka waxay ka qaadayaan taaran garow kale ka qaadayaan magaalooyinka aad uga fog ama tuulooyinka baadiyaha iyo isbitaalada leh bay degdeg ku geenayaan iyagoo 15 daqiiqo kale ku geenayaan halkii gaari hadii loo diro ku geenay dhiiggaas ama waxaas loo baahan yahay qofka tusaale laga haysto hal saac laga qofkii haysto ama nus saac kale qofkii haysto marka gaarigan laga loo saacay markuu yimaado meesha ma aad bogtay marka diyaaradahan waxa loo isticmaali karaa delivery waxa loo isticmaali karaa mapping and surveying wax la yiraahdo oo in mataqaana hawada ay gasho ay dhulka mataqaana kor dhinacyada ka sawirto ama dhinaca mataqaana gudan ama dhulka dhinaca sareysa oo kale waxyaabahaas in lagu ilaaliyo xuduudaha marka waxyaabo badan baa loo isticmaali karaa habba waxaan ku xiranta qaabka loo isticmaalo teknolojiyada lagu rakibo bay u shaqeynayaan midda aad ku muhiimka oo shoodha ka dhawaajiya waxay tahay wadanka iyagu wuxuu u badan yahay reer guuraa iyo reer baadiye taas waxa way Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu badan ay dumarka dhalaya ay umul raacaan ayagu u dhimanaya dhiig bax marka hadii la hormariyo diyaaradahan waxa looga faa'iideysan karayaa dhanka caafimaadka oo tuulooyinka iyo meelaha ka fog magaalooyinka qofka lagu gaarsiin karayo hadii uu baahan yahay in dhiig lagu xiro ama uu baahan yahay gargaar kale oo degdeg ah in lagu gaarsiiyo si qofka noloshiisa loo badbaadiyo marka waa fursad aad u muhiim ah oo mudan in waxa weey la maalgeliyo si looga faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed dhanka kalena waa rajeynaa in dawladda ama cid walba oo waxa way xiisaynaysa taageerida Axmed iyo hal abuurka quruxda badan oo u qalma inuu guuleysto insha Allah rajeynaa inuu guuleysto maxaa kala kulantaa bulshada marka waxaan sameeyay ma waxay u arkaan wax ciyaar ama wax mustaqbal leh oo guul ka gaari karaysi u arkaan runtii waxa qalbigaaga ku jira cidna ma oga salahan adiga wax ku soo waran diyaarad sidii horumar marka dadka looga qaybood way qayb mataqaana waxay arkayaan waxa arkaysid toos u arkamayaan oo macna rabtaankaaga jacaylkaaga dadaalada qalbigaaga ku jiraan ma arkayaan laakiin waxaan wax ogeeyeen ana positive macnaha way leeyihiin mind iska mataqaana xagga positive ku karsan dadka qaar waxa arkaysa kuleh maxaa isku daalinaysaa oo kale ama ma iska nasabtid maxaad macnaha waxyaabahan uga shaqeynaysaa ama marka inta diyaaradda sameynta ku dhex jirtay waxaad u baahanaysaa qalab yar oo runtii dadka qaar meelo badan bay ka galaysaa dadka qaar oo soo dhaweynayaan waxa rabti markaas oo ku siinayaan oo waxyaabaha localka wadanka yaalo kala dad u baahan ugu caawinayaan ayagoo lacag waxa ka siiyaan ma dhalinyaro badan oo baa xasuustaa marka dadku labadaas way qaybna waxa ku dhacay qaybna waxay u arkayaan wax iska maana yacni oo ma fahansanaba mataqaana waxyaabaha adiga ka shaqeynaysid iyo waxyaabaha arjeenaysid moos inay mataqaana xataa hadalo marka qaar waxa kala kulmaysaa dilaa ku adag oo mataqaana ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama jaamacadda soo xiratay hadda oo aad shaqo hayn familiga caqabad ma kala kulantaa ah ku mashquulka waxaan waqtiga ugu badan gelinaysi iyo lacagtaadiiba may kalama kulmo bal way ugu dhiirigeliyaan familka oo arrimahan oo kale maadaama dad wax bartay qaarkood ay yihiin dadku isku mid baahan marka waxay fahmi karaan waxyaabahan mataqaanaa sameynaya ku taageeraan saaxiibkiisa marka taageero familga waa inaa programka yaga intaasaan ku soo koobaynaa waxaan rajeynaynaa Axmed iyo fikradiisu inay guuleysato waa fikrad runtii u qalantaa inay guuleysato waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo hal abuur lahaa oo jeclaa inay wax qabtaan in markay soo bandhigaan aragtidooda aysan helin cid caawisa ama cid taakulaysa ay noqoto riyo meesha ku dhimatay waxaan rajeynaynaa tan inaysan noqontaa ay helasho garab iyo caawimaad bulshada Soomaaliyeed dhamaanteed waxaan rajeynaynaa inay waxa weeye ka qayb qaataan horumarinta fikradan iyo hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hal abuurkuba ay ku qaataan tusaale wanaagsan u noqdo Axmed fikradiisuna guuleysato aad u mahadsantihiin